taliyaha guud ee ciidamadoo dhan waa madaxweynaha soorka qoriyada amarada hawl lagu qablayna waxa bixiyo madaxweynaha bixiyo waa halkay mashkaladuhu hadee golaale aan ku kala duwannahay wasaaradaha maadaama wasiirkana dhan buu naga xukumaa madaxweynena dhan buu naga xukumaa marka anagu labadaasaan u dhaxaynaa oo midna dastuurkii baa qoraya midna administrationkii baa qoraya wasiirka ayaa waxaan saragnay in yar baan saragnay hase haatee nin la isfahmi karo inuu yahay wejiga horaa qofka laga gartaa way ay muuqatan waxaan ku rajaynayaa wasiir si daacadnimo ah oo wanaagsana oo sharaf leh inaan kula shaqayno laakiin waxba yaan lagu ergina waa meeshu wax weeye meeshii ugu xoog weynada qarankeen xajisade waxa laga yaabaa dadku waxay ka eegaan xagga miisaanadda ka eegaan miisaanaddana waa aduu marba saad u kordhisata dee u kordhisata weeye aday ku xidhan tahay inay halkanay dhisanto anaa sabab u ahaa oo nin ingiriis oo nala shaqayn jiray ayaan u geeyey jaamac gaas macaawiye xafiiskiisoo xafiis hoose ahaa halkaasa albaabkaasa yaa laba kala ahaa oo dilaacsanaa markaa gidaaraduna way dildilaacsanayn hadday maskaxdiinni san tahay buu yidhi markaa waxidii hagaagi maayaan markaasuu noo bilaabay inuu lacagna siiyo uu lacag u qoondeeyo oo marka halkan lagu bilaabo waxaa la yidhi wasaaradda waa daciif baa la yidhi wasaaraddu daciif maaha wasaaraddu waa qaranka wasaaradda ugu xoog weyn weeye waa inta ciidanka qarankaaba hoos yimaada ciidanka qarankuna waxa weeyaan cidda ugu waddankani ku dhisan yahay waxaana u sababa masalan calaamadda ninka askariga dablaqa qaato wasiirna ma qaadan karo agaasimana ma qaadan karo laakiin dablahaygu wuu qaataa macnaheeguna ay tahay anigaa qaranka ah marka hay-addii qaranka ahayd buu wasiirku xukumaa horta waa taayee ma yaraa ogow waa taliska ciidanka marka laga eego amba ciidamadaba laba meelood baa laga xukumaa oo aanay lahayn wasaaradaha kale taliyaha guud ee ciidamadoo dhan waa madaxweynaha soorka qoriyada amarada hawl lagu qablayna waxa bixiyo madaxweynaha bixiyo waa halkay mashkaladuhu hadee golaale aan ku kala duwannahay wasaaradaha maadaama wasiirkana dhan buu naga xukumaa madaxweynena dhan buu naga xukumaa marka anagu labadaasaan u dhaxaynaa oo midna dastuurkii baa qoraya midna administrationkii baa qoraya horta wasiir ciladahaasi way leedahay oo wasaaradaha sidaasay kaga duwan tahayoo annaga labada dhanba waa naga xukumaa waxaan rajaynayaa wasaaradduna waa wasaarad ballaadhan halkan hadda aan joogno waxaan u malaynayaa wasaaraddu waxay ahaan jirtay halkaa laga soo galo maxkamaddu hadda tahay allahu naxariistee waxaa markaa joogay jaamac gaas macaawiye yaa markaa loo soo bedelay inay halkanay dhisanto anaa sabab u ahaa oo nin ingiriis oo nala shaqayn jiray ayaan u geeyey jaamac gaas macaawiye xafiiskiisoo xafiis hoose ahaa halkaasa albaabkaasa yaa laba kala ahaa oo dilaacsanaa markaa gidaaraduna way dildilaacsanayn hadday maskaxdiinni san tahay buu yidhi markaa waxidii hagaagi maayaan markaasuu noo bilaabay inuu lacagna siiyo
uu lacag u qoondeeyo oo marka halkan lagu bilaabo bilowgii oo lacagtii la hayo ayuu cadami yimid allahu naxariista cadami wasiir cadami markaasaa dhismihii la bilaabay albaabkaa jeexjeexan iyo gidaarkaa jeexjeexan baana sabab u ahaa in la dhiso fooqan hadda markaa wasiir meel la dhisanoo wanaagsan baad u timid hadda laakiin marka rag baa saa ugu yimid markii hore waxaan rajaynayaa wasiirka waxaan isaragnay in yar baan isaragnay hase haatee nin la isfahmi karo inuu yahay wejiga horaa qofka laga gartaa way ay muuqatan waxaan ku rajaynayaa wasiir si daacadnimo ah oo wanaagsana oo sharaf leh inaan kula shaqayno faahfaahinta ciidamada markaad noo timaado yaan koobnaanta ciidamada iyo xaaladaha iyo guud iyo talisyada iyo isaanu kala qaybsanno markaasaanu halkayaga taliskayaga kuugu sharxi doonaa oo waqtiyaga yeelan doontaan laakiinse waxba yaan lagu ergina waa meeshu wax weeye meeshii ugu xoog weynada qarankeen xajisade waxa laga yaabaa dadku waxay ka eegaan xagga miisaanadda ka eegaan miisaanaddana waa aduu marba saad u kordhisata weeye aday ku xidhan tahay aad baan kugu mahadnaqaynaa wasiirkii horena waxaan leenahay waan kuu ducaynaynaa I think inaad meel fiican tegi doonto insha allahu tacaala waanan